amniga qaranka dabcan waa golo oo dalalka dunida badankood ay leeyihiin waa arin cusub oo 40 sano 50 sano la soo dhaafay dunida ku soo zaa'iday laakiin hadda waxa moodaa dal walba in arintaas ay u fadhido annaga dabcan dawladnimadeeni markii aan baaray golo amni markii kacaanka odaga isku ahaa wax kasta isaga maamulay laakiin dawladnimadeena markii ka soo noqotay qaab oo habqan ah oo shirar marmar la isugu yeero oo shir amni la dhihi jiray ayaa jiray dawladihii ku meel gaarka ahaa oo dhan markii ugu horeysay oo la formalize gareeyo oo madaxweyne uu dekreeto saxiixo waxay ahayd 2013 bishii August markaas madaxweynaha xasan sheekh maxamuud la taliyaan u ahaa waraaqda draftkeeda iyo ideyadaba aniga iska lahaa oo madaxweynaha u soo jeediyay draftkeedana qayb ka ahaa markaas gobolada dowlad goboleedyadu ma dhisnayn waxa ka dhisnaa kaliya dowlad goboleedka Puntland marka golahaas la dhisay wuxuu ahaa dowladda federaalka inta officialskeeda oo madaxweynaha ra'iisul wasaaraha 6 wasiir oo markaas 5 ay ahaayeen oo marka dambe 6 noqon doonto laakiin markaas 5 wasiir ahaayeen oo wasiirka arrimaha gudaha iyo amniga hal u ahaa wasiirka arrimaha dibadda wasiirka maaliyadda wasiirka gaashaandhigga iyo wasiirka cadaaladda 5taas wasiir iyo 4 taliye ciidan iyo madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha ayaa golihii markaas koowaad oo la sameeyay 2013 August kamid ahaa